dhacdooyinka caalamka, dhiirigelinta, qisooyinka, taariikhyada, intaba waxaad ka helaysaa janaalka Sahanwade. Fadlan ka mid noqo dadka ka faa'iidaysta muuqaaladiisa. Subscribe dheh, gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha koobaad. Mahadsanid walaal. Assalaamu calaykum. Waad salaamantihiin daawadayaasha ku xihan janaalka Sahanwade. Dunidan intaad joogtid waxaadan arkayn ma leh, wax walbana Alla subxaanahu wa tacaala qadartiisa ayay ku xihan yihiin. haddii aad aragto wax kaa yaabiya maahan inaad la yaabto, waayo waxaad tahay muslin, waa inaad qadarta Alla subxaanahu wa tacaala rumaysaa. dunidan waxaa kugula nool dadyow kala duwan xagga diinta, muuqaalka iyo dhaqankaba. tusaale ahaan, annagu waxaan nahay Soomaali, Ilaahay ayaa na siiyey dhaqan noo gooniya oo aysan cid kale nala wadaagin. waxaana aragnaa dhaqamo kala duwan oo aad la yaabisi markaad aragti, laakiin dadka ay dhaqanka u tahay way la qurxoon tahay. tusaale, dadkan oo kale waa aqwaan deris nala ah, waa Itoobiyaan. afka ayaa bir la gashanayaa. ninkan hadda birtu afka ugu jirto wuxuu aaminsan yahay inuu yahay qofka haysta dhaqanka adduunka ugu quruxda badan. sidoo kale ninkan marka uu gabar doonanayo wuxuu marayaa dhibaato kale. waxaa la keenayaa meel barxad ah, kadibna waxaa korkiisa lagu garaacayaa sheedal ilaa uu jidhkiisa oo dhan wada dhiig noqonayo. waxay aaminsan yihiin ninkii u dulqaata xanuunkaas iyo jirdilkaas inuu gabadhan mas-uuliyaddeeda qaadi karo. alxamdulilah, annaga Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa na siiyey diinta ugu macaan uguna quruxda badan dunida. haddii aan u soo laabanno mawduuceenna maanta, waxaan halkan kuugu soo gudbinayaa dadyow uu jidhkoodu ka duwan yahay dadka kale xagga muuqaalka jidhkooda, sida wejiga. waa Ilaahay quwaddiisa. ahmiyadda aan kuugu soo gudbinayo muuqaalladan oo kale ayaa waxay tahay walaal, inaad ogaato nimcada adiga Ilaahay ku siiyey inaysan dad kale haysanin, oo ay nolosha ku dhibaatoonayaan xagga bulshada dhibaatooyinka uga imaanaya sida cayda, ku qoslidda iyo dhibaatada nafsaaniga ah oo haysata dadkan. haddaba shakhsiga koowaad ee aan muuqaalkeenna ku soo qaadan doonno waa haweenay lagu magacaabo Ayana Williams. waa shakhsiga ugu ciddiyaha dheer dunida aan maanta nool nahay. Ayana Williams waxay ka soo jeedaa gobolka Texas ee dalkaasi Maraykanka. haweenaydan ayaa ciddiyeedu waxay korayaan ku dhowaad 20 sano. 2018 ayaa loo aqoonsaday shakhsiga ugu ciddiyaha dheer dunida. wakhtigii laga diiwaangelinayay buugga World Record ayaa la cabiray ciddiyaheeda. dheerarka ciddiyaheeda ayaa waxay gaarayaan 18 feet iyo 10 inji. ciddida suulka uga taal Ayana ayaa markii la cabiray waxay ka dheer tahay ninka dunida ugu gaaban ee lagu magacaabo Chandra Bahadur. Ayana ayaa mar waraysi laga qaadayay waxaa la weydiiyey inay iska jarayso ciddiyaheeda iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan, balse waxay ku jawaabtay, ciddiyahayga waxay igu hayaan dhibaato weyn, sida marka aan wax cunayo, marka aan doonayo inaan magaalada aado, mashquulka dadka. laakiin hadafkayga ayaa ahaa in maalin uun la igu qoro buugga World Record. haddana ma jaraayo ciddiyahayga oo waa qayb ka mid a noloshayda. waana la qabsaday, taasina waa ii farxad aniga. shakhsiga labaad ee aan muuqaalkeenna ku soo qaadan doonno waa Lalit Patidar. waa wiil yaroo u dhashay dalkaasi Hindiya. Lalit Patidar waxaa asiibay cudur aad iyo aad u dhib badan. wejigiisa oo dhan waa wada timo, xitaa gacmihiisa iyo qaybo badan oo ka mid a jidhkiisa. cudurkan ayaa magaciisa waxaa la dhahaa hypertrichosis oo dadka dunida ku dhaca 3%. Lalit Patidar wuxuu dhigtaa iskool ka mid a iskoolada Hindiya. halkaas wuxuu kala kulmaa tacadiyad aad u fara badan. ardayda ay iskoolka isla dhiganayaan iyo dadweynaha jidka maraya ayaa dhagax ku tuuraya, kabacdina ku dhahaya waxaad u eg tahay daanyeer. Lalit wuxuu guriga imaadaa isagoo loo geystay tacadiyad badan maalin walba, laakiin iskoolka ma joojiyo, wuu aadaa maalin walba. wuxuuna leeyahay hami ah inuu noqdo sarkaal sare oo ciidan ah si uu faamiligiisa iyo naftiisaba u difaaco. Lalit Patidar waxaa la dhashay 4 gabdhood oo ay walaalo yihiin, kuwaasoo mar walba ku dhiirigeliya una sheega inuu aad u qurux badan yahay. Lalit aabbihiisa oo lagu magacaabo Bankatalaal Patidar ayaa sheegay inuu u qaaday isbitaal weyn Lalit markuu jiray 2 sano, laakiin dhaqaatiirtu u sheegeen inaan waxba laga qaban karin cudurkiisa. laakiin Lalit wuxuu leeyahay rajo ah in wax laga qaban karo cudurkiisa. shakhsiga saddexaad ee aan muuqaalkeenna ku soo qaadan doonno waa Maxamed Kaliim, shakhsiga ugu gacanta weyn dunida. maxamed waa wiil yar oo ku nool tuulo ku taalla gobolka Haarkandi ee bariga waddankaasi Hindiya. maxamed waxaa asiibay cudur la yidhaahdo giatism oo sababa koritaanka gacmaha bini'aadamka, inuu gacmaha ka weynaado qofku, weliba dhanka sacabada ama calaacasha. maxamed Kaliim wuxuu awoodi waayey inuu ardayda ay iskoolka yihiin la qaato casharrada, waayo waxay ku dhibaataynayaan qaabka ay u og yihiin gacmihiisa. wuxuu ka dhashay qoys danyar ah oo muslin ah. macallimiinta iskoolka ayaa ka soo cayriyey iskoolka sababa jira awgeed, waxayna waalidkiisa u sheegeen inuusan iskoolka dhigan karin, waayo waxaa ka cabsanaya carruurta kale. sidaas la'adligeed iskool kale u raadiya ayay ku yidhaahdeen waalidkiis.
maxamed kaliim waxaa dhibaato weyn ku haysa cunitaanka iyo xidhashada dharka labadaas ayaa aad ugu adag ayay dhaheen waalidiintiisa 2014 waxaa rajo weyn soo geliyey maxamed iyo waalidiintiisa nin la yidhaahdo doctor raaja sabati oo dhakhtar ah isagoo yidhi maxamed xaaladdiisa wax waa laga qaban karaa doctor raaja ayaa yidhi marka hore waxaan isku dayaynaa hal gacan inaan qalliin ku samayno si aan u yarayno labadooda iskumar waxba lagama qaban karo wakhtigaas waxaa loo yareeyey maxamed gacmihiisa mid ka mid a iskoolkana waa loo oggolaaday xaafaddii iyo dunnidoo dhanna caan buu ka noqday laakiin gacan ka mida gacmihiisa weli waa sidii dhakhtarka ayaana yidhi haddii lagu daro iyadana waxaa imaanaya xaalad halisa oo dhimasho keeni karta shakhsiga afaraad ee aan muuqaalkeenna ku soo qaadan doonno waa radhakaanti raajbay waa shakhsiga ugu timaha dheer dunnida xagga dhagaha ninkan wuxuu u dhashay dalka hindiya waxaad ogaataa hindiya inay tahay dhulka cajaa'ibta iyo layaabka dadka ugu badan oo aan halkan ku soo sheegnay waxay u dhasheen dalkaasi hindiya 2003 ayaa loo aqoonsaday shakhsiga ugu timaha dhagaha dheer dunnida ninkan ayaa aad u ilaaliya timaha ku yaalla dhegihiisa si ay u sii koraan weligiisna uu noqdo shakhsiga ugu timaha dheer dhanka dhagaha dunnida wuxuu la kulmay dhalleecayn badan oo uga imaanaysa bulshada uu la nool yahay iyagoo ku dhahaaya waad fool xun tahay dhagaha ayaad timo ku leedahay sida shayddaankii balse ninkan ayaa yidhi waxaas oo dhan aniga waxba igama tarayaan waayo hadafkaan lahaa ayaa ka weyn waana gaaray mararka qaar xitaa waxaan ka ilaalin jiray xaaskayga oo dhowr mar iigu goodisay inay iga jari doonto balse markay aragtay abaalmarintan ku helay ayay igu dhiirigelisay iyaduna ninkan ayaa wakhtiguu booqanaya timajarayaasha wuxuu kala dardaarmaa wax badan inaysan sakiintu uga dhicin dhagaha kanina waa mid ka mid a shakhsiyaadka ugu layaabka badan dunida shakhsiga sanaad ee aan muuqaalkeenna ku soo qaadan doonno waa labada shakhsi ee lagu magacaabo roniya andoniya waa mataano isku dheggan mataanayaasha dhasha ayagoo isku dheggan ma sii noolaadaan wax badan laakiin roniya andoniya waa labada mataane ee ugu wakhtiga dheer waxay dhasheen sannaddu markay ahayd 1951 ilaa hadda oo ay nool yihiin waxay jiraan 68 sano waxayna ku dhasheen gobolka ohio ee dalkaasi maraykanka waana laba shakhsi oo iskaga dheggan caloosha ilaa xabadka waxay ku caddiban yihiin nolosha markay jireen da'da 4 sano waxay wakhtigooda oo dhan ku qaateen isbitaalka dhakhaatiirta ayaa isku dayey inay obarashin ku sameeyaan balse way suurtogeli weyday aabbahood ayaa damcay inuu inta laamiga geeyo uu lacag uga aruuriya dadka daawashada ugu imaanaya iyaga si uu isbitaal weyn u geeyo roniya andoniya hadda waa laba qof oo dunnida caan ka ah waxayna u shaqayn jireen shirkadaha madadaalada sameeyo si ayaga loogu maadaysto halkaasna ay lacag uga sameeyaan balse waa hawl gabeen hadda oo waa duqoobeen mana doonayaan in hadda wax qalliina lagu sameeyo waxay ku qanacsan yihiin sida ay hadda yihiin kuwaasina waxay ahaayeen shakhsiyaad ka mid a dadyowga dunida ugu layaabka badan janaalkan sahanwade waa mid inkaha qabtiraaya dhacdooyinka noocan oo kale ah waxay noo tahay farxad inaad naga mid noqoto walaal ku soo dhowow halkan waa goobtii aad wax badan ka ogaan lahayd waxa dunida ka dhacaayo sabskrayb fideogaana like iyo sheer iskugu dar si uu dadyow badan oo u baahan u gaaro waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan waxaan ku arki doonaa muuqaalkan muuqaalka xiga waa walaalkiin Saki Cabdi Yaasiin